weli ma maqasheen fanaanad Soomaaliyeed oo ka tirsanaa jirtay Hoballadii Waaberi in jacayl daran uu u qaaday boqor xukumi jiray waddan ka mid ah qaaradda Afrika. sanadku waa 1974 Muqdisho waxay martigelisay shirkii Midowga Afrika. waxaa markaa shirka iskugu imanayay madax tiro badan oo ka kala socota qaaradda Afrika. madaxdaas waxay iskugu jirtay boqorro, madaxweynayaal iyo madax kale oo ka socotay wadamada caalamka. dhammaantoodba waxay yimaadeen magaalada Muqdisho. laakiin shirkii marka uu gabagabo ku dhow yahay ayaa waxaa loo yeedhay fanaaniinta Hoballadii Waaberi oo ahaa markaa fanaaniinta ugu tilmaamsanaa ee dadku ay ku taameeyeen qaaradda Afrikana ay markaa ogeyd quwadda ay lahaayeen. Hoballadii Waaberi marka ay goobta ka qaadeen heesa xiiso badan oo marka ay la dhaceen madaxda Afrika ayaa goobta waxaa joogtay fanaanad la odhan jiray Khadiija Qalanjo. Khadiija Qalanjo waxay ahayd fanaanad lagu taami jiray quruxda, waxayna ahayd fanaanad aad u qurux badan oo dadku ay ka heli jireen. fanaanadan quruxdeedii waxaa la dhacay boqor magaciisa la odhan jiray Bukaasa. Bukaasa waxa uu ahaa nin axmaq ah oo dadkiisa badan ka xasuuqay, waxaana markaa uu boqor ka ahaa bartamaha Afrika. Bukaasa markii uu aad uga helay Khadiija Qalanjo waxa uu markiiba u tegay madaxweynihii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre, waxaana uu ku yidhi waxaan u baahanahay fanaanada quruxda badan. Siyaad Barre waxa uu ku yidhi magaceeda waxa la yiraahdaa Khadiija Qalanjo. Qalanjo waxa loogu bixiyay inay tahay gabadh aad u qurux badan. boqorkii waxa uu la sii dhacay gabadhan in quruxdeeda ay la dhacsan tahay Soomaaliya. kadibna waxa uu ku yidhi madaxweynihii waxaan rabaa inaad ii shurkaamisid oo weliba haddii ay ogoshahay inaan wax walbaaba u samaynayo oo aan cagaheeda dahab ka dhigayo. Siyaad Barre waxa uu hoos ula faqay Khadiija Qalanjo, waxaana uu ku yidhi mid ka mid ah martida inala joogta ayaa aad kula dhacsan, raba inuu sheeko kula wadaago. Siyaad Barre waxa uu sheegay boqor Bukaasa inuu raali ka ahaanayo, gabadhii Soomaaliyeedna ay diiday oo weliba ay ka jeceshahay wiil Soomaaliyeed. Bukaasa sidii ayuu ku holeelay oo magaalada Muqdisho uga tegay. Khadiija Qalanjo waxay ahayd gabadh aad u qurux badan. Khadiija Qalanjo sidii ayuu ku diiday boqorkii Bukaasa ee markaa xukumayay bartamaha Afrika. sida aad magaca ka dareemaysid, Khadiija Qalanjo waxay ahayd gabadh aad u qurux badan. quruxda waxay ku darsatay masraxa marka ay soo istaagto, qaabka jooggeeda iyo weliba heesta luuqda ay qaadayso markaa.